أنا أغنى بس هو السماء يجفتو عيسو هو سنبو فوراري هفوراري واحد دولة من السماء اللي وحد ميسا واحد ضد كدد السماء اللي وحد ميسا منا ما هذا القاضي ما تابن يسوكر بعليه وحدوني بيد السماء إلا قوسه بيد جفتو اللي قطعه دوري عيسى إصلا شوية دوني واحد تخبرنا كبير قبيلي سماء الليلة حكومة ده كان جفتاي waxaan la arado lama qalbiga u horeyn samays waxay ahayd kiis baa oo la xido aragga maqal maanta ku buu hadan ciisana umada ka deegaanka iyo inta ka wareynaan inuu sheegin mid dambi jara ma sheegin wallahi bilkii والكل تجربي وعاود الكعب بيننا بدينا وعاود الكعب بيننا إنام وحي عن وعاهي دولة الجبتة الصومالي اللي عن وعاهي إذا نوعاهي دولة يعاود الكعب بيننا والرحمة سوكر بسيدة لو رجل دولة بسيدة بينه احترامكii Soomaaliland anu hayna maanta ku quusanay kubi sheeka haday heer gobol tahay haday heer madaxtooyo tahay ma waliba ku lahaa oo udubada Soomaaliland kamid ah ku lahaa beesha Ciise hadaan hay kuba aan lahayn deemika ku lahayna meesha uu ka baxay ya dadka laga tiro yar ma jiray waxa dadka laga tiro badan dadka noocaas ah la sheegi jiray ayaa kamid ah dadka kuraasida maanta kamid ah dad baa u jahaysto meel marsaday gacanta ku ayuu mas'uulinaha sidii xaq u ahaa aanu maamulin si xaq daraa u maamulay kolkay sidaa u dhacday haddaan dib loo eegin oo dib loogu noqon oo nin walba xaqii aw lahaa aan la siinayna helin بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد أنا وجيف عاقل عثمان علي الدولاء كان هلا يد تولد جرجارة أو كتر صندوق مدى الخيا وحنا كسلام يا دمان بيش عيسى sidoo abayaashii igu horeeyay ay u sheegeen abashadayadu waxay ku saabsan tahay doorashadii maanta ka dhacday Soomaaliland ay xambaarsanayd ee golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka oo annaku hadii aan beesha Ciise aan kamid nahay beelaha Soomaaliland dega ee shanta beelooda doorashadaasi sidaad ogtihiin waxa komishanka doorashooyinka markii ay gobolka u gudubtay na soo gaadhay in la neeyay beesha Ciise way doorashadaas way ku dhacday waxba kama helin taasoo anakuna marka horeba shirkigeega qablay waa maadaama oo maartay aan ku lahayn garsoorka meesha garsoorka aan waxba ku lahayn anu waxa ku garaastay Abaay Cali Dulo ka hadlaya halka maanta ay joogna ka hadlayo dibta ee sal lagu hayo ka hadlaya ana waa dhaxlay baan maleynaya saddex sanadood oo beesha Ciise wax ka dhaca maayna wax u kordhay inay jir